ka sokow xamaasadda iyo xifaaltanka ciyaartan qabanqaabayaashu halkan waxay aaminsan yihiin in qaabkan uu ka mid yahay qaababka dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in ay dalka nabad kula soo dabaasho. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho. macaamiisha ugu badan ee dukaankan waa dhalinyaro wiilal iyo gabdho isugu jira. waxa ugu badan ee halkan lagu iibiyana waa ubaxa, astaan nabadeed iyo mid kalgacal. sidaa darteed ayay dadku ugu yeeraan dukaanka dadka isjecel. in ka badan 20,000 oo askari oo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya. balse dowladda Soomaaliya waxa ay doonaysaa in marka la gaaro sanadka 2018 ay ciidamadani bilaabaan in ay dalka isaga baxaan. balse su'aashu waxa ay ka taagan tahay ciidamada Soomaaliya ma u diyaarsan yihiin in ay ammaanka la wareegaan. halkan cidina kuma maqlayso, cidina kulama hadlayso. noloshuna waxay u socotaa si caadi ah. waxbay baranayaan, way sheekaysanayaan, way kaftamayaan. balse caqabadu waxay ka jirtaa marka ay banaanka u baxaan oo ay rabaan in ay bulshada dhex galaan. ilaa 15 buug oo ay qoreen 11 dumar Soomaali ah ayaa halkan lagu soo bandhigay. waa tiro aad u yar marka loo eego ragga wax qoray ee halkan buugaagta ku soo bandhigay. balse muhiimadoodu waxa ay ka muuqanaysaa mawaadiicda ay wax ka qoreen oo intooda badan bulshada taabanaya. ku dhawaad 300 oo qof oo Soomaali ah ayaa halkan ku dhintay. muddo 5 maalin ah kadib dowladda Soomaaliya waxay dib u dayactiraysaa burburkii soo gaaray wadada. ganacsataduna dhankooda waxay dhisanayaan guryahoodii ku burburay qaraxa. mas'uuliyiinta dowladuna waxa ay sidan u arkaan qaab ka mid ah qaababka ay doonayaan in ay shabaab kula dagaalamaan. nolosha habeenkii Muqdisho waxa ay si tartiib ah ugu soo laabanaysaa sidii ay barisamaad ahayd. taa waxaa laga dheehan karaa suuqyada iyada oo ganacsataduna ay waqti dheeraad ah u heleen macaamiishooda habeenkii dukaamaysta. shaacinta natiijada kama dambaysta ah ee doorashada madaxtinimo ee Somaliland waa dhacdo la wada sugayo. ka sokow guusha iyo guuldarrada waxaa ku xiran dib u soo laabashada adeega baraha bulshada ee dhammaan gobollada Somaliland. sanado yar ka hor cidna kuma aanay dhiiranaynin in ay halkan timaado oo ay u soo tamasla tagto. xaaladda ammaanka oo soo hagaagaysa ayaa dowladda Soomaaliya ku dhiirigelinaysa in ay dib u soo celiso dalxiiska oo il dhaqaale u noqon kara Soomaaliya. taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM waxa ay horay u qaadeen 10 howlgal oo nuucan oo kala ah. qayb ahaan waxa ay shabaab kaga saareen magaalooyin badan oo Soomaaliya ah. lama oga howlgalkan waxa uu kuwaasi kaga duwanaan doono. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho. This is Ahmed Gurey Monument in the center of Mogadishu. It was made in honor for Somali Imam who in 16th century defeated Abyssinian forces. He is one of the most famous figures from Somali history. The statue was badly damaged during the civil war, but has been repaired as part of the government's restoration program. halkan waa maktabadda qaranka Soomaaliya. dhismahan waxaa la dhisay sanadkii 1984. waxa ay ka dhigan tahay in uu taagan yahay muddo ka badan 33 sannadood. muddadaas intaa la eg waxa uu calaf u yeeshay in uu maktabad ahaado ama hawshii loogu talagalay uu guto wax ka yar 6 sannadood oo kaliya. muddada intaa la eg ee soo hartayna waxa uu ahaa goob dagaal iyo sidoo kale meel ay barakacayaashu ku nool yihiin. muddadii 3 maalin ahayd oo dowladda Soomaaliya ay u qoondaysay in ay socoto baroor diiqda loogu talagalay dadkii ku dhintay qaraxii Soobe waa ay soo gabagabowday. balse waxay u muuqataa in carada bulshada reer Muqdisho aanay weli soo gabagaboobin. toddobaad ka hor waxaa halkan lagu dilay ku dhawaad 20 askari oo ciidamada booliiska ka mid ah. taa oo muujinaysa baaxadda hawsha ammaan ee ciidamadan u taalla, iyada oo caqabado fara badan oo tan dhaqaale ay ugu horeysana ay ciidamadani ku horgudban yihiin. miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ee sanadka 2018 oo maanta la soo bandhigay waxaa ku jira qoonda u gaar ah in wax looga qabto adeegyada bulshada sida caafimaadka, iyada oo la sheegay in la dhisi doono goobo caafimaad oo hor leh. sidoo kale waxaa ku jira waxbarashada, iyada oo jaamacadda ummadda oo ay dowladda Soomaaliya maamushana si gaar ah loogu qoondeeyay miisaaniyad u gooni ah. ololaha doorashada madaxtinimo ee Somaliland haweenku waxa ay ku leeyihiin kaalin muuqata. balse sida aad aragtaan haweenku waxa ay soo istaagaan halkan. balse xagga waxaa taagan musharaxiinta dhammaantoodna waa rag. This is typical rally here in Somaliland. A lot of women here are very excited about the campaigns. But as you can see, the women
are here, and up there where the candidates are, but all of them are men. kaydkan waxa uu ka soo gudbay dhibaatooyin fara badan oo soo wajahay 1991kii markii ay burburtay dawladdii dhexe waxa uu ka badbaaday in la boobo isla 93kii waxa uu ka soo haray duqeyn ay ciidamada Mareykanku u geysteen balse xeeldheerayaashu waxay aaminsan yihiin in xilligan ay adag tahay in uu ka gudbo dhibaatada haysata oo ah duugow iyo daryeel xumo haddii aan loo istaagin oo aan wax laga qaban. halkan waa taalada Axmed Gurey bartamaha magaalada Muqdisho balse inta badan dadku waxay u yaqaanaan taalada number 4 taa oo muujinaysa sida ay meesha uga sii baxayso ujeedada ugu weyneed ee taaladan loo dhisay. wax soo saarka 28,000 oo xabbo oo digaag ah oo halkan lagu xanaaneynayo waa wax aad u yar marka loo eego baahida magaalada Muqdisho iyada oo ay soo tarayso fahanka ay Soomaalidu ka haystaan faa'iidooyinka hilibka cad. waa nidaam cusub oo ku soo biiraya nolosha Muqdisho iyo sida ay magaaladu u fidayso balse qiimaha guryahan lagu iibinayo waa mid aad u sareeya marka loo eego dakhliga qofka Soomaaliga ah sidaa darteed dadku waxa ay ciirsadaan habab kale oo u sahlaya in ay guryahan iibsadaan. xiriirka dowlad goboleedyada federaalka ah ee Soomaaliya ee arrimaha dibadda kuma eka arrinka khaliijka ee iminka taagan oo kaliya balse waxa ay heshiisyo la galaan shirkado waaweyn oo ajnabi ah oo ka howlgala deegaanadooda sidoo kale waxa ay safarro rasmi ah ugu baxaan dalka dibaddiisa iyaga oo aan shaacin waxyaabaha ay dowladahaasi ka wada hadlaan. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho. ku dhawaad 50 sano ayay Soomaaliya markii ugu horeysay yeelanaysaa nidaamka axsaabta badan balse waxaa shaki laga muujinayaa in ay qayb ka noqon karaan doorashooyinka soo socda ee 2021 sababo la xiriiro ammaanka iyo diyaar garowga ay dawladda iyo hay'adaheeda ugu jiraan in ay awoodda ugu wareejiyaan dawlad ay shacabku si toos ah u soo doorteen. tirada ugu badan qaxootiga Soomaaliyeed ee dib uga soo laabtay xeryaha Dhadhaab isla markaana yimid magaalada Muqdisho waxa ay isku bedeleen barakacayaal waxayna ka cabanayaan xaalad nololeed oo aad u adag. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho.